السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال كسر هذا بحساب ميديا يولي برامج كيني شيك كذا برامج كيني شيك كذا waxaan ugu talagalnay qof walba oo bulshada wax kale oo ay wax ka faa'iidi karaan maantana waxa martii ugu baash Umar Ismaaciil waad wada taqaanaan oo dhanka filimada turjumi yaqaana oo aad ugu fiican iyo waliba ahna saxafiin ruqada kamid ah saxafiyiinta ku nool magaalada Nairobi baash ayaan wax ka weydiin doonaa waayihiisi saxaafada iyo waliba waraysi dhinacyo badan taabanaya baash ku soo dhaw barnaamijkeena sheekada iyo waliba xasaf media وتاي ولا شيء أمال هذا ما صنتهاي رنتي برامج كذا مجا هانتي سنة أذو خوح بداية شيك كذا سيف يعني مركز شيك كذا شيء قف كلا أي كليرنا أذوين يوتيوب كذا طبعا بحر صف المودي مجا عادو خوح بداية طبعا حلوش هذا مجا عنا هذا كجمع إلنا سوت مجا هناك سنة دورتي مجا عقوة باش عمر إسماعيل waxaan kamid ahay sida ay idin sheegtay Amal uriyaasha Soomaaliyeed ku nool magaalada Nairobi haye baashi soo dhow mar labaad mar saddexaad waan kaaga mahad celinay sida codsigayga u ajiibtay aniga waliba daawadayaasha waan kaaga mahad celinaynaa su'aasha ugu horeysa diyan ku weydiiyo baashi xaquu ku dhashay xaquu ku barbaaray yuu yahay baashi noo sheeg oo tahay su'aal aad u wanaagsan aniga waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo xarunta maamulka جبلان أما جبل هوسة وهذا حرمكم الجارة طبعا هدي أنا كله وحنكبر باركس مايو طبعا بينا كل شيء ميل بدنا عن تجانو ير معناه سيدا يدوك الميل جاركم ميل جاركم بربارين كسمايو مقدش جروي هذه قبل بدنا كم إذا صوماليا أنا ليش يدوك سوقاتي نحل عن يرا نحبرش إذا تكسيجو هوسة يدحب حقوقات كسمايو تيدا سرنا وحنكو سوقاتي مقالة مقدشو sidoo kale gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya waa ka soo shaqeeyay asa warbaahin ahaan oo kale marka waa kaasa markii aan warbaahinta u nimaano maxaa kugu adkaa runtii wax walba loo qabanayo horta adeegna waa laga kulmaa fudeedna waa laga kulmaa waxay ku xiran tahay mar walba qofka iyo dadka uu la dhaqmaayo warbaahinaan hadii la dhaho aniga horta weligay waan jeclaa warbaahinta dadka waxa aad u dhageysan jiray idaacada xilliga ay yaraayeen digaagay kamid aad u jeclaa inaan dhageysiga idaacadaha iyo warbaahinada xitaa waxaan xasuustaa inaan xifdin jiray wadamada caalamka magaalooyinka caasimadaha wariyaha intuu sheegin kor inaan dhihi jiray magaaladaas caasimad oo magaaladaas macnaha niyad aan ku sii qabsan jiray marka aan warbaahinta bartay horta qaabkan ku bartay qaab cajiib u ahaa xilli imtixaan سنة دكتورية عن قل رمني ويلا صاحبنا عن سلا آخر سنجرني امتحاناتك هبين عندك من أنا واحد سلا آخر سنين وحدانية باشيو ما أنت قاب كوريا الأهانة عملها واحد آخرنينا صفيان وتشالنجز ها وربحنا وسميه أنا وربحنا سميه أنا إحدى وربحنا تميل لا يجي لحتى من جرا واسكت تعبرني صفيان لكن ويلكي أذو نيدي ولسه وحدانية وريا بتحب هذيك عدك مركا في ريا قاب كوا آخرني يسد أنا نسيت وقلا سين وحداني وما شاء الله أنا وصعوني كل قف مركو أمانة ولا أمانة سيد عادي كه مركو إحنا قطينا عني أسجب وربحين تأصل باللونه مركو وربحين تبرتي واحد عادي إذا عاد كم إذا عاد الصومالي كيلا شكك هلك إذا عاد طبعا مسكعك وبدين مركو باش هدي أنا سؤال شكال حكله إن ويلكي مركز إن أصحابته هذين سكول كانت سولي جنيسين ساجين ما كبيرة دان كصحافة إن إسقوا برتو كلا لكن واحد وربحين ولا شيء مجرته مركو أنا مدام وربحين تنولي إسكت على إن إسقني ومرة الأساسية معاني كصحافة دي جاينا ولا ما شاء الله وفي عند هاي هرسع وحنا قطينا إذا عاد كم إذا عادها مجال أنجو عن راديو عن كشك بلابو توبر أهانة سواء قفكم كوريا وريا ربع إنه نقد إسلام مركي شقة مهلو ست توبر أو وحياة بنسوق برتو واحد عادي عقبتها أو اللي كسيد احترناي إن يعني ما المحكمة ده أنا إذا عادي جو ليدري أنا سوق هذا وربحين واد بناك وين وربحين تيا دوني عدك يا سوق بصدي dadkii deegaanka ama dariska xaafadeeda ahaa dhan oo u sheegay waxa dhamaantii idaacadii ka dhageystay si fiican diyaarna baashi Umar ayaa idaacada maanta warbixin soo gudbinayo si fiican dadku waxay leeyihiin wariyo ma tihiin naga dhaaf ciyaartani adiga baashaala ku jirtay saaxiibow anigu baashaalin
waayo waxaa la yiraahdaa dadka badan kuma aaminaa mar waxa jirta hooyadada aniga waxaan rabaa in la aaminaha waa sababta u leeyahay dhageysta si fiican waxa tahay waana markii ugu horeysay idaacadda aan rabo inaan ka hadlo oo warbixin aan leeyahay laga sii daayo waa xasuustaa 5 saac iyo bari ahayd subaxnimo warka duhurna idaacaddu wuxuu ka bixi jiray 7 saac iyo bar warbixintii aan soo qabsaday waa hagaajiyey itminis waxaan ka wadaa waa hagaajiyey waan qoray warbixintii laakiin cilada meesha iga haysto waxa waaye ma garanayo sida la isugu xiro codkayga iyo codka qofkii cilada ugu weyn haysata taasi ahayd markaan leeyahay gudoomiyaha magaalada marka warbixinta ma duubtay mise si caadi ah u baahanaysa codkayga waa duubay codkii qofkiina waa haystaa oo waa soo duubtay sida marka cilada iga haysto waxa marka editingka ma aqaani sidee codka ninkan markaan leeyahay gudoomiye maxamed ayaa ka hadlay arrimaha saas sidee codkiisa u soo gelinaa ana horta marka koowaad ileen tos idaacadda ugu baxaysay waa in qofka markuu idaacadda cusub yahay waxyaabo badan oo maraya laga diyaariyaa laga tafsiraa waxaan xasuustaa mid kamid ah asxaabta idaacadda ka shaqeynaysa dhaniyaho warbixintan iga caabi maadaama codkii soo duubay codkaygana waa kana isku keen saar isku keen hagaaji warka maanta duhurkii ha ku baxdo hay isugu dhaa saaxiib barnaamij yaraa hagaajinaya marka barnaamij ka baxo oo ku hagaajinaa cabaaro soo fadhiya iska daba wareeganaya 6 saac iyo bar markii ku dhacda saaxiib ma markale iyo hagaajisid wax yaraa ii dhiman oo isug 7 saac madan iyo jabin 7 saac ay ku dhacday anigana dadaan sii wacay idaacadda iga dhageysta saaxiibayaal si fiican 7 saac ma rabtay inaad noqotid balan ku baahan 7 saac markii ku dhacday asleeyay 30 daqiiqo bas ka dhiman xilliga warkii duur idaacadda soo gali lahayd see wax wada aan ku dhaaniyo saaxiib ma iyaga jis ku sudaaniyo wax ma ku sheega saaxiibo waxa ma ku hagaajin kari iga qalay sidaa barnaamijno si fiican qof kale oo sidoo kale u dhahay markaas waxaan sameeyay galway warkii doorsaas ugu dhaafay maana isku niyad jabsana xaafid soo aaday asxaabtayda xidhayna maanta idaacaddu inoo daarneed waxa ma naqnaqlay baashi cumar oo warbixin soo dirin meena maqalna saaxiibo dheesh ciyaarta ka daa wariyamanteed anaga nagu ciyaaraysaa si fiican maanta ma ku ogaanay taas waxay caqabadii ugu adkeed ee dhanka warbaahinta ka soo maro haddii aaminaysid waxa dhacday in asxaabtii diiday in codadka waxaas iyo hagaajiyaan waagii dambe aniga aan u noqday qofka ugu gacanta fudud marka loo hagaajis milkiilihii idaacadda iska lahaana uu yiraahdo barnaamijkaas hebel ninka beesha noo jarjarayo noo hagaajinayo كل واحد مركب فعله برتينا واحد فعل مركب برتينا طبعا ويكدون توح أسك أو برتي مركب أو أكتيفات نقنيسا عيل وحي وبرتان نقنيس هذا وين واجي وحي قدام بيورب إحنا أنا جالس كجري برامجي أنا تفترين جري وحي أنا قرين جري أحس برامج حديدي هي حتى برامج أنا كقبل قال أدو أتكلم جرت مدام لوليها إذا عد دت كان كاسو هري أديك وعصبتها وصدق بلاد هنا صحافة وإن قدال جالنجيم بدنا أجرو marka qof aan waxba ku dhaamin laakiin meesha ka soo horreeyay ayaa ku leeyahay waxaan mas'uulin kartaa aniga kaaga fiican marka waxa dhacday barnaamij mawlid caruurta la diibay barnaamijka qof qaban jiray qofkii qaban jiray inta badan wuxuu sameyn jiray heese ama nashiidooyin isaga tuuri jiray caruurta yarka wax yar oo sheekeyn jiray oo ka tagi jiray marka laakiin markaas waxaan bilaabay xubno badan inaan u sameeyo barnaamijka xubin qisooyinka xubin caruurta lagu wacyigelinayo sheekh aan balaminayo jimco walba xubno badan oo hagaajiyay iyo xubin hadiyada ah waxaan xataa hadiyadaas jeebkayga anaa ka bixin jiray sababtu weyn ugu bixin jiray inuu barnaamijkayga ugu qurux badnaado wax mushaarna kuma shaqeynayeen si fiican $10 buugaag iyo kitaabo aan ugu soo gadi jiray qalimaan iyo waxa caruurta ugu soo gadi jiray waxa dhacday in maalmaha kamid ah maalin jimco ay tahay oo milkiilihii idaacadda iska lahaa oo dhageysta barnaamijkayga subaxii soo galayay oo iska daartay أنا برنامجي كلا كعنا عروضي سوى وعيا أنا عن ليه هاي سؤال هبل كجواب أو عندي سؤال كجواب عن ليه هاي جماعة صوص ده هديد هذا وإمو إذا عدى أنا بحنيس هديدس نكمل الخلاف ولا نك أنا العقم مسيني هديدا إذا عدى بحنيس كوها سوى ولا حفيزكم ما هذا يوعي نحن استحضرني هو مشار مقالة تدور عندنا هديدة هنا بحسد حافلا إني جاب كاغت هذا المدة هديد أنا بحنايو إذا عدي ماملك إذا عدها بحنايا هذا ما حاكو غصب إني وأنا حدا مرة بحنجي على شقة دا قبنا شقة قروح بدأ إنا قبطو أنا نوفيرنين العقه هلتان يوحق نوفيرنين مركو حداهي عدا لقى بلاو $100 أكو شقيني ساو داهي بالوالبة
hadiyadaasna anaa bixinayo dhahay inta badan sidaan ognahay wariyaasha Soomaaliyeed mushaarkooda waa $50 iyo wax nooc aad u weyn marka mushaarkii dadkii kale caadiga qaadanayeen oo kala lagu qoray waxa xasuustaa xitaa shir idaacad ay qabtaa jirto toddobaadkii hal mar oo kale oo idaacadan maxaa ka baxay maxaa ka qaldamay maxaa faa'iido ah waxyaabo badan lagu hadlo waxaan xasuustaa shirkaas maamulkii idaacadda iska lahaa inuu aad ugu ammaano oo weliba uu yiraahday barnaamijyo badan oo way hor liga xasdi jiray ninkan ha ka qayb galo barnaamij goonina la isiiyay aniga la dhahay keenso ada barnaamijkaas adiga laga tashanaa waxay markaas ka dambeeyay dhageystayaal badan ay barnaamijka caruurta ku soo caan baxay waa u gooyay waa barnaamij siyaasad iyo barnaamijyo arrimo kala aan caruurtii way ku abtigan xagu ku barnaamijyo badan aan galay marka taas waxay kamid tahay marka barnaamijkii markaas lagu dhiibay waxa qabadan kala kulantay maya ma sha Allah kulay qofka markuu meel ku cusub yahay caqabad uu kuma laakiin markuu meesha si fiican u sii dhex galo asaga iyo waxay ku xiran tahay garaadkiisa iyo ama asaga iyo qaabka uu fikrayo ku xiran tahay marka wixii markaas ka dambeeyay barnaamijyadeena aad u fiicnaayeen oo dhageystayaal badan idaacadda leeyahay marka waa kaasa barnaamijtaysna soo saartay aad u weyn caqabadaas waa caqabadii ka aad kala kulantay dadka marka kugu hareereysnaa aad u weyn arinta kale dadka aan kala kulmayna waxay tahay 2000 iyo waxaan filaa inay ahayd 12kii maran xiriyaha qaxootiga dhadhaab ka shaqeynayay ku dhawaad 5 idaacad oo Soomaaliya ku yaalo oo kale wareed ugu ahaa ama reporter idaacad Boosaaso ku taalo mid Xamar ku taalo mid Kismaayo ku taalo meel kala duwan ku yaaleen oo idaacadaha liska maqlin laakiin dhageystayaal badan ay leeyihiin waxa dhacday in barnaamij aan sameynayay diyaar garowga ciidul adha sida loo kala iibsanayo ariga xoolaha maadaama ciidaas ciid hilibka ay tahay bal qiimaha suuqa ay ka joogaan iyo sicirka kale waxaan xasuustaa oday kamid ah odayaashii meesha dalaal ahaa inaan ka wareystay sidee bal suuq uu yahay xaaladda guud si fiican oo sharaxaad u siiyay maama meesha fadhiisa tironi waa lagu dilayaa maxaa u hadashay idaacada uga hadashay si fiican odayga waa ay imaade wuxuu dhahay iga tirtir u dhahay waxaan saaxiibo waa wax dee ku dhawaad aan duubayo 10 daqiiqo waqti aan gelinay iga tirtir u dhahay adeer maxaa naan arrintan in lagu dilaa laga yaabo adeer ariga ka hadashay siyaasadna maada gelinaysa wax wadaa waxay noqotay odayga inaan qancin waayo oo markii dambe uu dhahaniyo iga dhilaad garay maral banaha fiican dadkaaga inaad qiimeysid si fiican marka waa kala dhigay qof kale markaas dambe raasiday taas waxay kamid tahay caqabadaha dadka aan warbaahinta fahansanay ay kala kulmi kartid mar walba waa ka farxadii aad kala kulantay wallahi farxad badan aan kala kulmay inta warbaahinta ku jiray barnaamijyo badan oo aan sameeyay waxa jira runtii saameyn reebay runtii qofka wariyaha waxyaabaha lagu baahan waxa kamid ah inuu bulshadiisa si daacad ah ugu shaqeeyo si fiican ana ahaan dareenkayga farxadeed aan sidii kor maanta qof waa ku bedeshay waxa baratay waxa ay tahay anoo Nairobi joogo inaan warbixin ka hagaajiyay gabar kaliyaha labada kaliyoodba ay shaqeyn waayeen isbitaal hooyadeed ay kula jirtay lacag badan isbitaalka loogu yeeshay waxna aan haysan si fiican oo aan awoodin marka waxa dhacday inaan warbixin ka sameeyay gabar aad ugu fiican oo tansiin loo dhaho oo isbitaalka joogta ila soo xiriirtay ictiraadna saas wax u jiraan waa u maaday warbixinaha ka hagaajiyay idaacadaha iyo TV-da oo shaqeynaya siiyay dad badan arkay ila soo xiriiray waxa halkan aad ugu amaanaya إلا عبد الله نوني إليري ورنتي فنان أذو قيمة بدن رنتي برامج كاس نصيف عن إسكال قبلنا برامج بدن وضد أنكو عاونين أنا عن سميني ينين اللي راه فيصل كرتا أو كيب وين كلها إن غير كاسي إمك الدن مجمل له يكونوا ولادان قبل دي برامج ميل سرسري قارين كافيصل كرتا لا سيباهي وإحنا قلت إن هي هذا صوت البدن سمركانا إن جودس عافمات كذا wadamada horumaray wax loogu qabto gabadha hooyadeed iyo qaar kamid ah familigeeda hadda wax ku nool yihiin Denmark iyadoo caafimaad oo ma sha Allah marka taas waxa qayb ka tahay runtii dadaalada aan sameynay farxad kale oo fara badan way jiraan oo dad asaas oo kale oo caawino oo wax loogu qabto kale marka intuu wariyaha mar walba siyaasad bas xoog saari lahaa ama mar walba uu saari lahaa waxyaabo aan dan weyn aan ku jirin inuu bal dhan diiniyana aad u fiican tahay codkaaga maadaama aniga hadda aan wax ku tari karin laakiin bulshada inaad wax ugu qabto aad weyn codkaaga ama qalankaaga codkaaga wax karin aan u hadalnaa aad weyn baashi markii aan ka soo tagno farxadaadii iyo waliba guuldaradaadii mis leedahay baashi Cumar halkii uu ku haminayay in uu saxaafada ka gaaray uu ka gaaray runtii marka warbaahin la dhahayo ama marka wax walba la dhahayo
wax meesha ugu dambaysa laga gaaro ma jirto si fiican saa u socoto asladaada meesha ugu dambaysa waa boqolaal kale oo kasii dambaysa arkaysa si fiican haddana kuwa sawti hadaaqis waa sida waxbarashada oo kale waxbarasho ma laga weynaada hadaa tirada maanta tanaa bartay beri meel kala baranay beri wax kala baranay marka kulli aan hadda ismaleeyay meeshii ugu fiicneed waa ka gaartay warbaahin reporter waa soo noqday barnaamij soo saar waa soo noqday TV-na madax oo soo noqday TV ugu horeeya madax u noqday wuxuu ahaa oo agaasimo halka Nairobi ugu noqday TV la Somali News iminkan Kalsan TV aan jooga oo aan agaasimo ka ahay marka kulli darajo ka sii sareysa laakiin waxa rajeynaa insha Allah dadkayga aan wax ugu qabto wixii aan bartay haba yaraadaani aka dhanka filimaanta sidee isku tihiin tahay runtii aflaanta marka la dhaho film sameynta horta waa dookhayga waxaa jirta riwaayado badan oo soo saartay riwaayada Cambuulo aad weyn waa dookhayga dhanka film sameynta filmaan badan oo aan sameeyay jiraan oo saameyn reebay sida filimkii Cambuulo filimkii Lugooyo filimkii Qiyaano Dumar kulligoodna qisooyin cajiib ah wateen filmaan badan oo door kale aan ku lahayn jina qarna actor aan ka qaar aan kaabalaadka qarb aan wax ku jilaayay sidoo kalena ad director mar walba ka aad weyn laakiin mar wax walba loo sameeynaa waxa fiican inaad ka fiirisid maxay dadkaaga ka bedeli karaan waxaan sameynaysid inaad iska sameeysid aad weyn inaad iska sameeysid oo kaliya aad tiraado waxaan dadka filmada sameeynaa iska sameey waa dhibaato leedahay filmkayga Cambuulo horta wacyi gelin uu watay taas oo ah dhan jecel markii loo fiiriyo iyo dhan Soomaalinimada dad walba waxay leeyihiin cuntooyin u dhaqan ah Itoobiyaanka aan jiro Itoobiyana jirto aniga Soomaalidana cuntooyin badan oo dhaqankeena jiro sida ay ka mid tahay Cambuulada ama digirta qof walba uu yaqaano soorta ay ka mid tahay muufada waxyaas aniga waxyaabo gaar noo ah waaye marka wadanka imaanay dad badan oo xarkaysa ka faana dhahay Cambuulo ma cunay gabdhiyo chicken Egypt intii nagu barteen dhahay aniga waa waligeeba Cambuulo ma soo cunin soor ma cunin muufa ma cunin marka filmkaas wiil dhalinyaro ah runtii gabar aad u jeclaa waxna ahaysan saasay tahay nin ay saaxiib yihiin lacag yar ku soo deensanayo sifo saaxiibtiisa ay caaw uga casheeyaan laakiin saaxiibtiisa waxay ahayd saaxiib iyaduna afar gabdhood kale guriga ay la joogaan rabtana in wax badan loo keeno laakiin asaga awoodiisa waxay noqotay waxyaabo yar inuu geeno sida cuntooyinkan dhaqanka u leenahay filmka taas ku saabsanaa marka qisada filmkaas maadiga keensaday mise qof baa kula wadaagay inta badan filmada qaarna waa wax waxaan u sameeyaa mal awaal ahaan oo kala ah qaarna waa wax dhacay qisa dhacday filmkaas Cambuulo wax dhici kara dabcan way tahay si fiican marka mal awaal ahaan u sameeyay anaan iska la filmkaas gabdhiyo qurbaha imaadeen si magaalada Nairobi aad la isku bedelay waxa laga yaabaa amal inay shalay adduunka cuntada ugu jecleed soor iyo Cambuulo laakiin markay Nairobi timaaday dhahday ma cuna jidkan iyo jibsiin baa filmkaas dadka wuxuu ka hadlayay qofka jeceshahay inaan la goonin tusaale aad wiilkan gabadha aad u jeclaa ma inay ayada ku qasabto asxaabteeda inuu cunto u keeno marka qayb kala jirta xitaa sameeyo Lugooyo la dhaho wiilkan gabadha maadaama uu jecel yahay maqaayada afar gabdhood soo waday isagana wax fiican ma haysto waxay noqotay markii dambe inuu ka dhuunto telefoonkan ka dansado marka runtii filmkaas asxaabtii la jecesana aad u amaanaa ka mid tahay sagal عبد السمد حليه إكران حفصة أصحاب رنتي النصرة أصحاب أذو قيم بدنا فيلم كاسكاي بالقاعدة أنت بدنا شوت فيلم سي فيلمان تي وبدين فيلمان على المجرى مركل جرى فيلم قيانة دومر أو قصدي عجيب إتاي وحاولنا فيلم كاسكاي دومر كاد يويل قبر أدو جعلا مليار كشكين جري هذيهم والبقرة صحيح قصبت إنه عشاء وكان ويلكاس ساس التابين والبعشاء وكان جري لكن عشاء وحاولنا جري ساحبيين بقبل سيدي على لكن نكان ما أقول نكان ساحب بس إنه قبلها شو كان صد لا وضع إسكامورة كمان إذا نبيهم نكان مكو عشرة كانوا يحديه جرتي نيهو وما صنتها إسكسي بح صاحب كذا كله وعني صار كي عشان كوه هاي وجهي كله على اسم ودم بينتين خنت لو كان هذا إنه حد اسم ما كمله أصحاب تدني رد طبعا قارب تدني رد وحبي كشكت قار سبورت كشكستان قار ناقب بس كشكستان قارب وحبي كشكستان صحابته مركا يرنا نجمعين وحكي شيء كسنجرين أنا ما كان شيء كسنجرين ما كمل حلها صاحبه أنا وجور سربا صاحب كياتاي في عنتا أنا واحد بدل نرشيد أكو واتد مركا واقع سمية جور سرب تاني وكنا في عنتا دمشي دي ما يبت ناس دمشي ده صبرين الله
برشلونة sigiskii degantahay warna gobol sabrina dhow sigiska degan anaa shukaan sida saaxiib wax sidee wadaan wax wadaan sawirkeeda tus sawir kala soo saar wartan waa saaxiibtay ma dhici karto waa anaa guursaro see wax wadaan habeen walba casho ii karsaa u dhahay war anaa habeen walba casho u keeno arintu waa adkaat inaa been ii sheegaysa inaa u sheegaysa waxaan ku ogaanayo dhahay habeenkii markaa cashada keentid u dhahay dabcan waa iska baxdaa laakiin anaa la isoo wacaa markii la isoo wacaa anigu soo wacaa noimo aywa sidii sameeyay uu imaada ninkan oo arkay saaxiibkiisa meesha fadhiyo wareede waay baayo maxaa saasi u gashaa aniga uu ii jabay uu iska baxay ninkan kaalana wuxuu dhahay saaxiibka dabsan u gashay ana sana ay galaysaa saaxiibe ma fahamtay ninkan oo ku jecel batas u galaysidba anana maalin igu sameynay filmkaas anka waxaan ku jilaa nin naaga badan asxaab badan leh oo jaceylkaba aan ka aaminsan in qof in xiriir la sameeyo oo iimaanaa xulay saaxiib tale is gabadhii aan jeclaa saan oo guurso rabe ayaan walba waxaan soo gadi jirnay in si jirta ma jeclaanba ma xatiri markaas daqiiqad baa anaa wali soo waca markaa ifraax xamdi caaliyo ya adiga waa magaalada u kala kacsan tahay si fiican xalaani waxaan intaas ka dhaaftumniyo jacayla una iyo waxaan iska daa nin weyn ilaahay ka dhigay tan hadii kugu daadayso mid kala raba macaan inay ku dhahdo caadi iska oo maskaxdaada waxba jaam ay asxaab badan ku xiraaya nafsigu cajiib gabadhii soo xasuunaysa ninkan soo u wanaajin jiray soo u jeclaa soo ugu imaan jiray soo lacagaha u siin jiray waxaayo u siin jiray sanad kadib ay soo raadinay intee weeyse waxa uu maana ninkii nolol kale ku jiro baashaalaayo mid inta ka fadhiisaa walaalo sanaysan way marka finaas wuxuu ka hadlay nafsigu ka hadlay inaa qofku jecel aadan macnaha aadan dhibaateen marka si fiican in baashi waqtigana naga koobayna gunti iyo gabagabada dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa jecel in ay filmaanta xaqooda ku biiraan kuwa saxaafada jecel iyo waliba kuwa kale ee leh heybadaha kala duwan maxaad kula talinaysaa runtii su'aal wanaagsan waaye asxaabtana daawanaysan sida aan daawanaysan way kaga mahad celinayna maadaama waxa ugu wanaagsan qof maanta ku siin karo waa waqtigana wax ka muhiimsan ma jiro marka waa kaga mahad celinayna asxaabta daawanayso dhalinyarada aflaamta jecel inay sameeyaan runtii filmaanta qaab loo sameeyaa jirto hadda waxaa arkaysaa filmaantii isku wada qiso ekaaday isku wada sheeko ekaaday sheekada filmka waa koobiyin kartaa laakiin wax badan waa inaad ka bedeshaa magac ahaan inaad ka bedeshid qisada hadday u socotay sidaan inaad ka dhigi kartid qofka directorkana wax walba ay ku xiran tahay hadda qof walba jilaa uu noqday qof walba riwaayad uu sameeynayaa guri walba kaamira taalo maamada waxbay jiloosaa wiilka waxbuu jilooyaa marka caqabado badanaa jiro laakiin waxay ku xiran tahay wax tayo leh haddaad rabtid inaad soo saartid juhdi geli waqti geli film waxaa arkaysaa 2 saacadood la duubaay isla maanta la soo gelinayo waxaasna lama rabo waxa loo baahan yahay filmkan in waqti la geliyo maalinba qayb duubtid maalinba si duubtid ilaa bil ay ku qaato filmkan ka shaqeyntiisa iyo qisadiisaba marka ha ku degdeganaan leenahay sameynta filimada oo degdeg ah oo samarka soo gelinaysaan dhalinyarada jecel saxaafadana waxaan leeyahay saxaafadu runtii waa midil laba afle marka waxay ku xiran tahay aad weyn hada wariyaal badan oo waxa jiro deegaanadooda iyo qabiiladooda bas oo hadlo kaas qofka haduu sumcadiisa ka dhumayso had dadkii dhanna waxay noqdeen wada atoryaal wada wariyaal baashi waxaan isleeyahay in wariyaha dhakhtarka iyo inta bulshada u adeegto in aysan qabiil lahayn oo marka groupka ay ka tirsan hadii uu fanaan yahayna qabiilka fanaaniinta uu yaanyaleedu waa israasadaan saasi wax walba isku raadsadaan si fiican marka waxaan dhihi lahaa wariyaha tahay oo shaqeeya dadkaaga si nadiif ah qurux badan adigoo aadan qabiilna u adeegin una adeegin danan kale oo gaar adigoo dhanna u janjeerin marka intaas ku soo koobaya هذا ما هتصنتهاي باش عمر إسماعيل وان كاغا ما هاد علنايا مدنت اديك رئيسكان قروحدا بدن iyo waliba waqtiga aadna hortaani geed daawadayaasha waday daawadayaal inta saynu ku soo gabagabinay barnaamijkeeni sheekadaada waad ka daawanayseen Baxarsaaf Media barnaamijka waxa idin la socodsiinaysa anigoo ah Amal Nuur Same intaan barnaamij lamida iyo waliba qof kale oo culus idin kaga keeni doono waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana